markoobaad waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xigta waad maasantihiin kasoo qaybgalkaad kasoo qayb gasheen barnaamijkan caawa waxaana mahadle kacdoonka sujeedka qabyaalada bahda isboortiga qayladaan iyo waliba TV-ga Universal oo fursadan saamaxay inay caalamka intiisa kale ay daawadaan barnaamijkan uu si toos ah caalamka intiisa kale uga socdo muhiimadu ay leedahay kooda Luulyo ama 26 Juun waa maalmo ku weyn ummadda Soomaaliyeed ومالما آدي أدو هبونان لها ودن كي قديسين أي كدعان ودن كو دولة توسي أي كجرتو وأنا أمد إيدو رفات كان وناشنال هولداي إيو مالما هلو يقانو كل بحلقة محافلة ودن كو إيدو الفصح بو وضاهان لا دبالدك بعاز تبسعون لها انتي كران كيغا الدولة إيدو ويدا دا شيء ودن كان الدبالدك وكجرا بلسا كل واحد ريمي كردتك 1980s كي أما 70s كي سومالي يكون ولا يدو نبادنا كون راحيستي dadkaas un baa dareemi kara dadkayga late 80s ki iyo 90s ki xiliyadan dambe ku jira baa waxay dareemaan aad bay u yartahay waa kaliya inaan YouTube daawano ama waxyaabo la mid ah kaliya intaas un bay dantu noo saamaxaysaa 26 Juun ma aysan ku imaanin ciyaar iyo kaftan iyo dheel iyo kuraas la iska fadhiyo dad baa waqtigooda u huray maalkooda u huray naftooda ugu qaalisan u huray halgeemayaal Soomaaliyeed oo kala duwan ba wadanka ka soo maraan 26 Juun waxay maalintii ugu horeysay oo geyga Soomaaliyeed وانا عدو كتلين على الصومالي لقى تاجي مقالة هرجيسة عشوين أما أفر عشة كدبا وحصور تجشي وميسي تريان جينو قبل هذا كفرد حرم هذا سيو سداسنا على كي صومالي لقى تاجو لبدي قبلنا على كاس كميدوبان ميدوجي ومدة الصومالية وحوها مالين حسوس مدن مالين كوهبونيد ما أنتو كلنا إن سداس وكلو دبالدجو مالين ومدة الصومالية وذا مسنتهاي هل أهمية أما إلى هايين هالموقفة ومد Soomaaliyeedin ay yihiin waxa rajeenayaa inay maalintaas quruxda badan soo laaban doonto doorka dhalinyarada maxay ka soo ciyaareen nabadaas iyo xal u raadintaas ummadda Soomaaliyeed marka laga hadlayo taariikhda waayahan dambe waxa ugu badan laga hadla dhalinyarada Israel bahayd Israel dhalinyarada ahayd anaguna dhalinyaro maanta jirnaan nahay maxaasana kala duway Israel xilligoodii waxay naga duwanayeen ummaddu way qiireysneed ummaddu way caadifasaneed ummaddu guumaysi baa saarneed ummaduna hal ummad bay ahayd kuwooda waaweyn waxay example ama tusaale fiican siinayeen kuwooda yaryar annagu maxaan ku soo aadnay xilli kii weyna uusan isagu fursadiisa ka faa'iideysan xilli kii yara wax badan uu sheegay aysan jirin oo ahayn Soomaaliya 91 kii dawladii baa ka dhacday iyo wadankii waa la isbursaday reer hebel baa idin dilay generation kaas ama farqiga u dhaxay waa la dareemi karaa balse taas macnaheedu ma ahan iyagu way dadaaleen anaguna dadaali mayno xilligoodii aad bay u adkeed ama aad bay u yareed qof Soomaaliya oo intuu heer jaamacadeed gaaro wax barto halka maanta la heli karo boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo PhD ama shahaado ugu sareysa caalamka meesha laga gaaro laga heli karo kaliya waxay naga duwan yihiin in ay ummad mid leeyihiin kaliya waxay naga duwan yihiin generation ka weyna ama jiilka horeeya inay taageeri jireen hadaba idinka mas'uuliyadda saaran jiilka naga weyn muxuu yahay inaadna bartaan wanaaga ummadda Soomaaliyeed kulay baan hadda isku maarko Cabdixaafid Xiir wiil daayar daadu kulay baan dambo rag 20 iska daba gaar hadda 20 wada jirnaani 9 noo sleeg baan nahay laakiin kuwa iga dambeeyaan maxaa uga sheekeyn karaa Soomaaliya waa wax aan kaliya YouTube ka arka am history aan dhagay ku maqlay balse kuma faani karo sidii hooyooyinkeena ama bayaashan ku faani karaan Soomaaliya bari samaad sidaas bay ahaan jirtay balse waxaan sameey karaa ama maanta uu istaagi karaa Soomaaliyadaas lagu faanay inaan mar labaad dib u soo celiyo aan caruurteeda ama caruurta awoogu waa haduu ilaa naftaygu daayay ama u badisiyo inaan dhigi karo aabba intan ayaa anagu ku dadaalna jiilka yaga idinkuna halkaas ka siyaan baqaada waa waajib saaran qof walba oo Soomaaliya caalamka meel walba ka joogo in uu ummadiisa wanaageeda ka shaqeeya yaana noqon dad caadifad hayso oo kooda Luulyo iyo maalmaha taariikhiga iyo maalmaha soo qor isku yimaada aan noqon dad isku midaysan aan noqon ummadda waxaan intaan wadaagnaahay inta noo dhaxaysa intaan wadaagnaa ka badan wiil yaabti baa leeyahay xigaal baa leeyahay kaayaga Jabuuti joogi kaayaga Ismaaciil jooga waxba u dhaxeeya ama waa ilmaadeer ama waa wiil iyo seedigiis waa saasun baa la kala yahay ummad kala fog ma nihin waxaana lagu ogaan karaa in Soomaaliya in hebel in ayaata in hebel oo hebel baa dhalay population dhan oo saas isku wada garanaysa daanahay maxaa dabana loo kala furfirqinaya maxaana loo kala duwaya wiil yaabtigiis baan nahay aan wada joogno ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiina waxaan leeyahay habeen wanaagsan waa kullayba waa habeenkii calanka Soomaaliyeed meel walba laga taagay caawana waxaa leeyahay calankaas isagoo sharaf leh waxaan rajeynayaa inuu dhawaan soo laabto ana maasantiin